بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو هذا إيجار سوماليا معهدك إيجار سوماليا دبلومينكو بحشو دبلومادي هيومن ريسورس مانجمنت هايد ayaan rabnaa caawa inaan wax ka sharaxno insha allahu tacaala sidii ay qorshaha inoo ahayd waxaan soo marnay maadadii human resource managementiga ahayd waxaan soo marnay 3 jabtar oo ugu horeeyay jabtarka ugu horeeyay kow ahaa wuxuu ahaa human resource management ama shaqadii shaqaalaha xogtii guud oo maxaan ku dhahaa overview-ga ahayd jabtarkii labaad waxaan soo marnay qaabka shaqaalihii loogu sameynayo qorshaha oo human resource planning bay ahayd jabtarka saddexaad waxaan soo marnay job analysis oo shaqadii iyo shaqaalihii intaan kala furnay waan mid walba qiimeyn ku sameynay analysis lafa gurid baan ku sameynay markaas waxaa noo soo baxday waataan example ka dhiganaynay inay hadday shaqada shaqaale u baahan tahay haddii ay shaqaalaha u baahan yihiin in shaqooyin kale lagu daro waxaanu ka soo qaadnay markaa inay shaqaalihii ay nagu yar yihiin markaas waxaan u gudubnay jabtarkii afraad caawa oo recruitmentiga ahayd ama shaqo baahinta shaqo baahinta si degdegan u dulmaraya insha allah wixii su-aalana sidii caadada noo ahayd waxaad kusoo gudbin doontaan insha allah emailka igu soo weydiin doontaan recruitmentiga lagu sheegayo waxa uu yahay stepka u horeeya si loo buuxiyo filling a vacancy si loo buuxiyo shaqo bannaan shaqada bannaan shirkadda gudaheeda ka bannaan si loo buuxiyo waxaa la sameeyaa recruitment ama shaqo baahinta waxaa la yidhaha in shaqadii ka bannaaneed shirkadda lagu dhajiyo goobihii loogu talagalay inay dadka ka akhristaan marka qofkii bannaanka joogay ee shaqada u baahnaa iyo shirkaddii shaqada haysay qaabka isku afgaranayeen waxaa la yidhahda recruitment oo shaqo baahina weeye recruitmentiga waxay macquul ka dhigtaa to acquire in la helo shaqaalihii numberkii saxda ahaa iyo skillskii saxda taybka waa skillskii saxda ahaa iyo numberkii saxda ahaa ee ay u baahnayd shirkadda si loo hubiyo to ensure si loo hubiyo the continuity horu socodka iyo yacni isku xirnaanta operation of the organization shaqadii ay shirkadda markaa haysay isku xirnaanteedii waxaan rabnaa definitionka inaan isla eegno labada definition halkan ku qoran definitionka hoose baan eegi doonaa insha allah definitionka hoose waxaa qoray Werther iyo Davis recruitmentiga macnaheeda iyo definitionkeeda haddii markaa definitionka lagu weydiiyo labada mid baa qaadanaysa ama buuggii aan soo dirnay waxaa ku yaalay definitiono badan waxaa qaadanaysaa markaa kan adiga aad isleedahay markaa waa suurtagal okay recruitmentiga is the process of finding waa habka lagu raadiyo lagu helo and attracting lagu soo jeedo capable applicants dadka macquulka ah ee awoodayaasha ah waatii aan hore usoo sheegnay markaan job analysiska maraynay waxaan soo sheegnay qofka in lagu xusho knowledge skills and ability awood aqoon iyo xirfad capable marka saddexdaasay kulansanaysaa waxay awood u leeyihiin capable waxay awood u leeyihiin applicantskaas for employment in la shaqaaleysiyo oo shirkadii iyo shaqadiiba waxbay kusoo ziyaadinayaan the process begins shaqada waxay ka bilaabataa markii new recruits are sought and end when their applications are submitted markii shaqaale cusub loo baahdo bay bilaabanaysaa oo shaqo baahintay bilaabanaysaa waxayna ku eg tahay shaqo baahinta markii applicationska la xareeyo oo deadline-ka uu dhaco markaas waxaa dhamaatay recruitmentiga intaasay ku egtahay waa shaqada markii la dhajiyo ilaa ay shaqada intay ka dhacayso intaasay ku egtahay resultii kasoo baxaya recruitmentiga markii la sameeyo waxay tahay pool of applicants codsiyo badan baa kasoo baxaya yacni shaqadii waa dhajisay codsiyo aruurisay waqtigii deadline-ka uu dhacay waxaa kuu soo baxay oo resultii kuu noqdo waxay tahay inaa haysatid codsiyo badan codsiyaday ka badan yihiin waa shirkadda waa ay ka fiican tahay okay waxyaalaha effect gareeya shirkadda markii ay sameynayso shaqo baahinta waxaa ka mid a size of the organization shirkadda intay la eg tahay saameyn bay ku yeelataa waxaa sidoo kale saameyn ku yeesha employment conditions markii la eego shirkadda halka ay ka shaqaaleysiinayso shaqada shaqaalaha ay ka shaqaaleysiinayso oo tusaalaan hadday meel nabad tahay meel horumarsan meel dib u dhacsan meel dagaalo ay ka jiraan and so on
saameyn bay ku yeelataa. Shaqo baahinta waxaa sidoo kale saameyn ku yeelataa past recruitment. Last time sidee baad u baahayseen shaqadii idinka banaaneed sidee u baahayseen, saameyn bay haddii ay xumayd saameyn bay kugu yeelanaysaa oo dadkii la rabay inay soo apply gareeyaan shaki bay ka muujinayaan. waxaa sidoo kale saameyn ku yeesha working conditionska, xaaladda shaqadii goobta la rabay in laga shaqeeyo. working conditions sidee loo shaqeynayo? working conditionska waxyaalahan ka wadna waxaa waye goobta lagu shaqeynayo waa sidee. waxaa jirta goob kulul, goob qabow, goob fadhiya, mid shaqaalaha u istaagayo, mid shaqaalaha u fadhiisanayo, mid shaqaalaha oo meel gargariiraysa ama vibration leh matooro iyo ay ku jiraan, meel qaylinaysa, meel aamusan, meel maxaan ku idhahdaa qoyan, meel nadiifa, meel boor leh, meel aan boor lahayn. working conditionska waxaa la yidhaha xaaladahaas oo kaleeto. sidoo kale waxaa saameyn ku yeelata salariga and benefit packageska. maxaa shaqaalaha xaggeeda kaa soo aadaya oo mushaharkii iyo benefitska ah ee aad shaqaalihii ugu talagashay, taasna saameyn bay ku yeelanaysaa. waxaa saameyn ku yeelanaya sidoo kaleeto qodobka shanaad oo ah rate of growth of the organization. growthka waa xagga wealthiga iyo dhaqaalaha. shirkadda dhaqaalaheeda hadduu kobcayo, recruitmentigaaga iyo shaqo baahintaada saameyn fiican bay ku yeelataa. haddii shirkadda oo ay bankrupt kusii socoto, hoos sii socoto, dadkana ay arkaan, iyana saameyn bay ku yeelatahay. dadka ma jecla in shirkad hoos usii socota ay ka shaqeeyaan. shaqada la rabo in la qabto, operationska la qabanayo, seasonality haddii uu yahay, haddii ay ku xiran tahay season. tusaale ahaan shaqo keliya soo dhejisa, xagaaga keliya soconaysa, shaqo qaboobaha keliya soconaysa, shaqo wajiinaha socota, shaqo and so on. shaqadaasoo kale iyadana saameyn bay ku yeelataa. waxaa sidoo kaleeto saameyn ku yeesha cultureka dadka ay dhaqanka ay leeyihiin, deegaanka ay shirkadda ku taal, economically sidee way level of economic waa sidee. waxaa sidoo kale ku yeelata legal factorieska, sharciyan iyo shuruucda dalka aad ka shaqeynaysa iyo goobta aad ka shaqeynaysa waa sidee, saameyn bay ku yeelataa. sourceska la rabo in lagu baahiyo shaqooyinka banaanaa waxaa ka mid ah laba sources. waxaa mid la yidhaahdaa internal sources, midna waxaa la external sources. internal iyo external sida caadiga aad u jeedid bay isaga soo horjeedaan. yacni midna shirkadii gudaheedaad ku dhajinaysaa oo dadkii gudaha joogay iyo dadkii adiga xiriirka goonida la lahayd ayaa ka faa'iideysanaya. dadna marna waxaa ka faa'iideysanaya dadka dibadda oo external baa la yidhahdaa. internal sourceska present job employeeska, shaqaalaha hadda kuu jooga oo hadda shaqooyinka hadda ku haya ayaad ku xayeysiin kartaa. waxaad dhihi kartaa shaqaalaheega ha soo apply gareeyaan, ama shaqaalihii kuu jooga waxaad dhihi kartaa wariyaha xaafadda uu jooga qof raba inuu shaqadan ka faa'iideysto oo employee referrals maxaan ku yidhahdaa ii sheeg. markay soo bandhigaan shaqaalaha ay soo bandhigaan qof ku yidhahdaan aniga wiila abti u ahay ama wiila adeer u ahay, waan shaqo ugu baahanahay, waa u qaadan kartaa caadi. formal employees, shaqaalihii hore oo kaleeto aad shaqada ka tagay ama aad ka eriday oo kale haddana dib baa ugu xayeysiin kartaa. previous applicants, hore baa waxaad u qabatay codsiyo, nin ama laba qof baa ka qaadatay, dadkii kaleo kuu haray intaa emailadooda soo aruurisa aad u diri kartaa. waxaad dhihi kartaa shaqadaasaa bannaan. waa internal intaasoo dhan. externalka waxaa weeye employee waxaa weeye employment exchange. meesha maxaan ku raadii sheeg haddii ay jiraan shirkado intay si guud u heshiiyaan oo shaqaale isweydaarsi ay sameeyaan. tusaale ahaan adigoo shirkadda jooga oo shaqo baahin sameynaya, shirkad B dhexdeeda shaqo baahin ku sameynaysa, waxaa leedahay qofkii raba inuu ii shaqeeyo ha yimaado. sidoo kaleeta advertisement waxaad xayeysiin ku sameyn kartaa joornaalada iyo wargeysyada iyo so on. employment agencies, shirkadaha ka shaqeeya shaqaaleysiinta oo kaleeto iyana saameyn weyn bay ku yeeshaan. campus recruitment oo ah in iskoolaadka iyo jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada iyana xayeysiin ku samaysato oo aad kusoo bandhigto shaqooyinka aad haysay oo aad tirahda ardayda keliyaan ugu talagalay. deputation waxaa weeye ururada ay yani tusaalehaan si volunteerka oo kaleeto isula kulmay ama yani dadka isu yimi ururada samaysta oo kale oo aan ahayn professional associations. professional association deputations waxay kala duwan yihiin. professional associations waa ururka macalimiinta, ururka injineerada, ururka dhakhaatiirta, ururka aqoon-yahanada, ururka dadka noocaas oo kaleeta way. laakiin deputation waxaa la yiraahdaa associations ku dhisan mabaadi kaleeto oo tusaalehaan waxaa dhici karta in aad ku xayeysato ururka wadaniyiinta oo kale and so on inaad ku xayeysataa macquula. siyaasad bay leedahay recruitmentiga ama shaqo baahinta. siyaasadeeda waxaa ka mid ah 5 qodob
waxaa la rabaa in organizational objectiveska la qoro, waxaa la qorayaa maxaan ku dhaha mabda'i guud iyo ujeedkii guud ee shirkadda ay lahayd, waxaa identification of recruitment needs, waxaa la eegayaa in loo baahan yahay in shaqo baahin la sameeyo si loo qaato go-aan ku saabsan xaggee baan gaarsiin karnaa, yacni dimensionska aan gaarsiin karno ma internal baan ka dhignaa mise external haddaan ka dhigna intee baan gaarsiinaynaa and so on. Sidoo kaleeto sourceska aan qaadan karno, waxaan eegaynaa criteria of selection and preference, maxaan ku kala dooran karnaa baan u samaysanaynaa. tusaalehaan hadduu 2 qof hadday noo yimaadaan 2 qof maxaan ku kala dooranaa. qodobka u dambeeya waxaa leeyahay cost of recruitment, kharashkii ku bixi lahaa meeqa kharash leeg baan u ogolnahay inay ku baxaan xagga financially, meeqa kharash intee leeg baan u ogolnahay inay ku baxaan maxaan ku irahdaa ii sheeg markaan sameynayno recruitmentiga ama shaqo baahinta. processka la sameynayo waxaa weeye in marka ugu horeyso waxaa lagaa rabaa inaa recruitment planning waa simple. waxaad leedahay waxaan dhejinaynaa shaqo hebel, waxaan dhejinaynaa waqti hebla, waxaan ku dhejinaynaa goobo hebla, waxaan ugu talagalaynaa in ay dhegsanaato maalin hebla ilaa maalin hebla, waxaan joojinaynaa maalin hebla and so on. yacni intaasaa qorsheynta la yidhaahdaa oo planningka dad badan baa xoogaa ka cabsada, laakiin markaa recruitment planning sameynaysa waa very simple way. waxaad sameynaysaa kow inaad maxaan ku irahdaa ii sheeg assignmentiga hadda soo socdaan insha allah recruitment planning ka dhigi doonaa, qaybtiina inaa hesheen baa laga yaabaa assignmentiga recruitment planningka. waxa weeye goobta lagu dhejinayo, sida loo dhejinayo, shaqada waxa ay tahay iyo waa qorshihii oo dhammaystiran weeye. sidoo kale istaraatiijiyadii lagu fulin lahaa baa la develop garaynaya, surgeon baa sameynaysaa, yacni shaqaalihii meeshii shaqaalaha ku habboon inay ku shaqeeyaan, dadka ku habboon inay ku shaqeeyaan oo shaqaalaha ka dhigatid meesha ay joogaan baa ku aadinaysaa. screening waxa weeye inaad dul marto oo aad eegto in shaqadii recruitmentiga shaqo baahinta ahayd inay habboon tahay iyo in kale. tan u dambeysana waxa evaluation, qiimeyn and control, maamulid. markii shaqada la baahiyo waxaa laga rabaa inaad qiimeyn samayso shaqadii aad baahisay ma ku habbooneed meesha ku baahisay in lagu baahiyo iyo in kaleeto. marka dhammaan markaa eegto recruitmentiga waxyaalaha loogu talagalay waxay tahay in ay isku fahmaan qofkii shaqaalihii banaanka jooga ee raba inuu shirkadda u shaqeeyo iyo shirkaddii gudaha ku jirtay raadinaysa qof u shaqeeya baa waxay isku gartaan markaa waxa kan la yiraahdo recruitmentiga. chapterkii recruitmentiga intaasuu noogu eegaya. wixii su-aal aad qabtaan insha allah waxaan rajeynayaa inaad soo weydiisaan oo ku mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.